بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamij qaas oo aad ka daawan doontaan shabakada caanka ee Daynile barnaamijkaas oo ku saabsan xog waraysi qaas oo aan la yeelanay Cabdicasiis Xasan Cali oo ah aqoonyahan in muddo ku noolaa qurbaha tagana magaalada Muqdisho annagoo aan ka wareysan doono xaaladda guud ee magaalada Muqdisho iyo xaaladda siyaasadda isbedbedelka badan ee Soomaaliya Cabdicasiis marka hore waxa ku soo dhawaataa shabakada Daynile oo si toos ah lagaga daawanayo amaasantay Cabdicasiis waxa tahay nin aqoonyahan in muddo ayaa waxaad ku noolayd qurbaha Soomaaliya waxa kugu dambeysay ayadoo samaafar jiro ayadoo traafikada shaqeynaa ayadoo ay shaqeynayaan nalalka hadda markaa tagtay adigoo aan tagin dhowr iyo 20 sano sidee noqotay macnaha noloshaada iyo farxadaada markaa tagtay magaalada Muqdisho maxaa dareentay aniga wadanka waxaan moogahay muddo 24 sano ama markii ugu horeysay aan tago fikradii aan ka aaminsanaa wadanka iyo markii aan tagay aad iyo aad ay kula duwanaayeen waxaan tagay wadan nabadgelyo leh wax dagaal iyo waxa maqli jiray wadanka markaa tagtid mataqaana dagaal iyo xabad wiifta iyo waxa jiro wax xabad aan maqla ma laha xamar waxaan ku wareegay qaybaheeda kala duwan laga bilaabo mataqaana xaafada u geyso la yiraahdo dharkanley ilaa kaysanay wax xabad aan maqla ma laha wadooyinkii waxaa joogay ciidamada qalabka sida nabadgelyada aad iyo aad ay u fiicneed Cabdicasiis aan kula kaftamo macnaha diaasbarada waxaan moodaa macnaha waxay tagaan markay tagaan xukun iyo walax bay raadsadaan adiga hammi ma kugu jira markaa tagays magaalada Muqdisho maya kulay wadankii waxa uu tagay maadaama wadankii uu ahaa wadankeygii aan muddo aan ka maqnaa aniga wax mataqaanaa aan u tagay arrimahaas ma jirin kulay waxaan u tagay wadankeygii inaan mataqaanaa booqdo wallahi booqashadaas waxay booqasho aad iyo aad u fiican waan arkay mataqaanaa nabadgelyadii wadankii laga sameeyay dowladii oo shaqeynayso ciidamada taasna hadeeda waxaa iska ciidamada qalabka sida iyo mataqaanaa ra'iiska mataqaanaa dowladda Sheekh Shariif Sheekh Ahmed sida la socoto macnaha waxa jooga ciidamo Amisom leera dadkii macnaha hal xabad hadii lagu roodo madaafiic iyo waxyaalo waaweyn ay dadka la dhacaan marka macnaha waxa leedahay macnaha Amisom ciidanka militariga Soomaaliya ayaa hawshan kaliya qabto Amisom waxa ma qaban dad ay xasuuqeen iyo waxyaalaasna ma jiro mise ma leedahay macnaha wallahi ani kulay mataqaana wixii aan maqlay waxaan arkay kulay aniga labay kala hayn ciidamo Amisom u jeeday mataqaana joogo mataqaana meelaha mataqaana sida airport oo kale iyo mataqaana iyo madaxtooyada laakiin kulay mataqaana ma hadda mataqaana aniga qaasatan aan waxa iskala mataqaana ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kulleeba mataqaana ma hadeedii waa leeyahay laakiin ma hadda weyn waxaan saarayaa mataqaana in guush aan gaan ciidamada qalabka sida Cabdicasiis saad la socoto siyaasadda Soomaaliya waa iska dawareeg waa iska gadis markaad magaalada joogtay macnaha aan ka arkaynay TV-da caalamiga qaarkood ayaan ka arkaynay adigoo ka qayb galaya shirar siyaasadeed ah ay odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ay qabanqaabiyeen ay ku shirayeen ayagoo ugu soo horjeedo shirka loo bixiyay wadada toosan ee Redbank ay u bixisay qaramada midoobay looga soo horjeedo xina shirkaas maxaa looga hadlayay maxaa kaga hadlaysay waqtigii uu shirka ka socday magaalada Muqdisho oo ahayd 26 waxa kaloo ka socday shir uu qabanqaabiyay Agustina Mahiga shirkaas uu ahaa shir aan loo dhameyn Soomaalida oo ahaa shir ay loogu yeeray mataqaanaa Soomaalida ka timaado gobolada bari iyo Soomaalida ka timaado gobolada mudug shirka kale oo xamar ka socday waa shir loo dhamaa Soomaali weynta dhan loo dhamaa marka shirkaasna wuxuu ahaa shir la isku wada afgartay natiijooyin fiican baa ka soo baxay Cabdicasiis sida anaga aan ugu maqaala ama sida shirarka markay qabato shirkaas waxa wadatay qaramada midoobay bishir beesha caalamka ay wadatay ahayd macnaha Soomaaliya ereyga looma dhano waxaad moodaa inay dhagaha Soomaaliya ay ka sii baxaysay macnaha waayadan dambe marka mar walba macnaha siyaasad ahaan marka shir la qabanayo dadka reer Muqdisho maxay u qabanqaabiyaan shir looma dhano ama shir ayaga u qaasa ay ku burburinayaan shirka kale oo markaas socdo shirka kulay ma ahayn shir lagu burburinayo shirka kale oo Agustina Mahiga soo qabanqaabiyay shirka Agustina Mahiga soo qabanqaabiyay ma ahayn shir Soomaalida u dhan tahay waa shir uu loogu yeeray kaliya Soomaalida degta gobolada bari Soomaaliya iyo gobolada mudug
soomaaliya haddii la raba arrinteeda in la xaliyo ma arrinteeda xalin karta soomaaliya jawaabteeda kulle waa maya waa shir mataqaanaa waa in uu ahaadaa shirka shir loo dhan yahay soomaaliya oo dhan shirka uu Agustina Mahiga qaban qaabiyey ma ahayn shir Soomaalidu u dhan tahay taa ayaa cadeynayso in shirarkaas oo kale aysan mataqaanaa guul gaareen midda sidoo kale Soomaaliya haddaan rabno annaga nabad Soomaaliya inay ka aslaxdo ma shir uu soo qaban qaabiyey nin mataqaanaa ajaanib ah aan Soomaali ahayn kulley u maleynaya mataqaanaa in wax natiijo ay keenayso cabdicasiis waxaa nagu maqaalaa shirka intuu idiin socday ama shirka aad wadeen in igala yeeray macnaha xarunta xalana oo shirkii ka socday markaa ay qaramada midooda waday oo aad macnaha aad tagteen macnaha markii aad u tagteen aad macnaha qaramada midoobay qaybta u qaabilsan shirkaas Mahiga iyo kooxdiisu maxay idin dhaheen maxaana ka wada hadasheen والله انتو شركة السعودية يا وحنا نوير نكي دبتيجي وها نكي لبعض مسألة أفريكان يونيون ك وحنا نوير إلى بوركي حلانة وير متقنا ننبو صدري وير متقنا نوع ماذا ماشي مع وتقني مركي أنا ماشي تقني وحنكو كلنا متقنا وحياة معجزة waxaa meeshii joogay mataqaanaa ogayse ka yimid mataqaanaa gobolada bari inkastoo magaalada xamarna iwaasideedii iyo mataqaanaa oday dhaqameedyadii ay joogeen u jirto meel u jirto 2 kilometer marka hadda waa wax foolxun badan bay ahayd kole mataqaanaa wuxuu sameeyay Agustina Mahiga oo mataqaanaa shir uu isugu yeeray mataqaanaa Soomaalida ka timaado gobolada bari iyo gobolada mudug aan Soomaalida kalena mataqaanaa loogu yeerin كلها أنا كلها آد فول حنبوها شكو كقبت متقنا مقالة مقدشة أغسطين مهيجا حد كوضع هذا الشيء مركز شركي واتكتين ماشي واتكتين حد كوضع هذا الشيء يا سبحينا يدقالها شركة معناها ذيك الجوني قوس تضعها أدكو قبتين يا دقالها ديسيني شركة متقنا كوقبنا مقدشة كلها وهو شر أي خبن قابين أو ذي دقميتية الصوماليات dhaqaalaheedana wuxuu ka yimaada odayada dhaqameedka Soomaaliyeed dhaqaalaha meesha ayuu ka yimid saa la socoto macnaha magaalada Muqdisho markaa tagaysa baahi badan ayaa jirta dadka amaan ku jiro oo baahan haddana dadku waxaa nagu maqaalaa dadka ciidamada dawladda aad hadda ammaanaysay qaar ka mid ah inay dadka dhacayeen boobayeen dadkina ay dilayeen marka qaarkood haweenada qaarkood ku jira ayagoo qaylinaya waa la nal kufsaday ciidanka dawladda wax kufsanaya dhahaya la maqlay marka ciidanka saas ma la amaani karaa oo dadkii baahnaa wuxuu dhacay kufsanay mataqaana adduunka wadan kasta anaga adduunka aan ku noolnahay dhibaatooyin waa iska dhici karaan maadaama mataqaana wadankii uu yahay wadan mataqaana haddii nabadii la soo celiyay oo aan nabad la'aan wadan ka jirtay mararka qaarkiis waa iska dhacaan mataqaanaa in dhibaatooyin yar iska dhacaan laakiin waxaasoo kale adduunkana wax ka dhacaan saan jecelahay oo meelaha mataqaanaa dagaalada ka jiraan sida Ciraaq Afghanistan marka dhibaatooyinkaasoo kale waa dhacaan marka taasna hadda excuse ma aha mataqaanaa lama dhigi karo mataqaanaa waxyaabaha dhacayo aad waxay ahayn waxyaabo aad iyo aad u foolxun umad bay dawladda samaysay ninkii mataqaanaa gabar kufsada ama nin dil asagan dilba u yaalo marka dawladda kulleyba arrimahaas ay go'aansato cabdicasiis markaad magaalada Muqdisho maxaa adiga ka yaabiyo magaalada Muqdisho aad weligaa hodow arag aad ku aragtay magaalada Muqdisho inta aad joogtay maadaama aad magaalada Muqdisho xilliga aad ka soo bixisay ligaas aad magaalo nabdoon samafarayaasha ay shaqeynayeen jidadka ciidamadii booliiska ay shaqeynayeen qofka oo cabsi ku jirin adii maxaad macnaha kugu cusbaa oo magaalada Muqdisho ka yaabiyo aad ku aragtay inta aad joogtay wax aniga yaabi hadda oo aad aan tilmaami karo malaha waa iska jirta mataqaanaa baahi waa iska jirtay oo mataqaanaa ilmo yar oo teenage ah yar oo wadooyinka waa ku arkaya mataqaanaa oo mataqaanaa dhibaataysan laakiin wixii fikradii aan ka qabay iyo fikradii mataqaanaa markii aan tagay aad iyo aad ay u kala duwaneed waxaan tagay wadan nabad ah elboorkii shaqeynayo dekedii shaqeynayso wadooyinkii waaweynaa nalalkii ay shaqeynayaan ciidamo wadooyinkii joogaan marka aniga kulley mataqaanaa wadan aad iyo aad nabad leh ayaan arkay aniga oo dad badan oo mataqaanaa oo elboorkii dad badan imaanayeen oo ka imaanayeen dibadda businesskii suuqyadii waaweyn magaalada shaqeynayay kii xamar weyne kii bakaaraha wallahi aniga kulley wax xagga mataqaanaa
wadooyinkii waa jajab waa iska jiraa dhismooyinkii waa jabeen maadaama wadankii 20 sano dagaal sokeeyay uu jiray laakiin wax kaloo mataqaanaa xagga security-ga ama mataqaanaa dhibaatooyin waaweyn aan arkay kulley ma jiro aanan ahayn nabad aniga nabad baan arkay markii aan xamar tagay fikradihii aan ka aaminsanaana mataqaanaa iyo markii aan tagay aad ay kula duwanayeen aniga waxaan ka aaminsanaa xamar haddii la tago mataqaanaa xabad wiifta iyo mataqaanaa iyo boob iyo isbaaro iyo mataqaanaa waxyaabahaas ma arkin nabad baan arkay aniga cabdicasiis waxaa tiri nabadaan arkay aniga waxaa igu maqaalaa dad badan oo qurbo jooga oo tagay qofka oo dambiisha xibaarsan markuu arko in laga naxayo nin bac wada haddii arka la naxayo nin wadaad ama cimaamad qof dhallinyaraa gadaashaada uu socdo adiga dhan argagax kugu dhacay marka waxaasoo dhan ma jiraan maana leedahay maadaama dhowr qof oo dadku badankood isaana leeyihin wallahi aniga kulley waxaan ka hadli karaa personal experience ama waxaa aniga soo arkay aniga waxaan soo arkay nabad labada week aan joogay xamar marka kulley waa iska dhici karaan dhacdooyin xunxuneen waddanka marmar ka dhacaan hadda dhacdooyinkaas meel kasta ay ka dhici karaan adduunka meelaha dagaalada sokeeye ka dhacay sida afghanistan ciraaq laakiin aniga labada week aan joogay cabdicasiis magaalada muqdisho waa tagtay waad booqatay macnaha muddana maada arag macnaha dadka ka yimaada magaalada muqdisho inta badan waxaa lagu yaqaanaa dad nidaam diida soomaalidu kale way ka takooran yihiin soomaalida kale nidaam ayay samaysteen hadda maxaa tale usoo jeedinaysaa dadka koonfurta ama magaalada muqdisho ka yimid khaasatan maxaa tale ahaan usoo jeedaysaa oo aad kula talinaysaa maadaama dadka kale gobolladooda ay dhisteen dadka ayagana oo deegaanadaas ku jooga ayagana maxaad ku boorinaysaa ama oo kula talinaysaa ayaguna waqtiga xaadirka ah hadda mataqaanaa dowladdii waxay samaysay nabad hadda nabadda dowladda hadda la raaco oo mataqaanaa nidaam ha la samaysto kulley mataqaanaa 20 sano ayaan waxaan ku jirnay mataqaanaa dagaal sokeeye marka kulley mataqaanaa dagaalkii mataqaanaa qooyinkii mataqaanaa oo al-shabaabka ahaa magaalada waa laga saaray marka hadda nabadii dowladda dhalisa mataqaanaa hore ha loo hormariyo waxaan aaminsanahay mataqaanaa nabadda dowlad kaliya nabad ma keento shacabkana waa dowladda inay la shaqeeyaan mataqaanaa wada shaqeyn fiican ka dhacdo shacabka iyo dowladda marka waxaan oran lahaa mataqaanaa dowladda shacabka ha la shaqeyso dowladda saasay nabad lagu gaari karaa dhegeystayaasha qiimaha ee qaayaha laho waxaan halkaas kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii qaaska ah ee kaamirada wareegta ee daynile oo aan ugu talagalnay dadka soomaaliyeed in si toos ay ugala socdaan ama ay ka ogaadaan xaaladaha ugu dambeeyey ee soomaaliya ama khaasatan ka jirta koonfurta soomaaliya waa anigoo ah axmed sheekh cali oo ku magac dheer kale oo sidaa oo idinku nabadgelin doona hadduu alla yidhaah